باكستاني مالك كستمر كوسو يستاهل تلفزيون كودا دخاتير أنها لويرا أنها محل ده إنجنيرا لأنها تاسمعها كلية إن دت كاسيتو لأن أنا جاي مثلا لكن معنى هذا حواي دت كانوا أربعة إن فندري أهان جيرين حدا نواكب إحنا مرحلة داسيتو برلمان كمان تهدي على الصومالي التجارب معني هذا حواي سو قالوتي وأهان جيرين لكن مرحلة داسيتو نواكب إحنا لبعضهم كسر نصوص على يتمن كسر نصوص على وحياة بدن وكلام ولا أركضونا وطن كان وكنا ما أنت عروضة مليرة وقتين حالة بكرة عروضها نجمعهم ما عرفت لنا الشقوينك لنا عافمات وحكي سوا أبني لكن أنا وحن عاوة وإنا أبني dadka namatalayo oo baarlamaanka soo maanta u socdo oo aan rabno in aan xog siino maxaa ka sugaynaa maxay tahay wax inoo qabanaya maanta ma anigu kugu dhahay wax kastaan sixi doonaa mise wax kastaan hagaajin doonaa baarlamaankana ma u maleynayay sida aniga ogahay qof Soomaali inuu u tartamay hadda ka hor waxaa loo tartami jiray biistiire iyo biidelsutwalg aniga soo maray Faadimo Madaro agteeda fadhida biistiire soo martay laakiin baarlamaanku waa meesha sharciga wadankan laga dejiyo waa meesha gobol kasta la iskaga imaado waa meesha sharciyada maalintii laga heshto maalintii noola keeno sanadyadii ugu dambeysayna waxaan ka mid ahaa xubin xisbigaaniyto maana u lahayn fursad inaan baarlamaanka fadhiyo laakiin isla markaasaytana sharciyo anagana saameynayo inaan wax ka bedelo waan helay fursad anoo xubinka xisbigaasayto mahad arrinkiisii waagii baasboorka lagala noqonayay waagaasayta ma la mari jirin maxkamad ma la mari jirin qofka UDI enkilkleeto kusoo diri jirta baasboorka waa laga noqday xaaladdan meeshaas ku dhimaatay qofkii haysto fursad inuu looyar raadsado oo maxkamadda asaga raadsado jeebkiisa ahayd laakiin maanta waxaan haysanaa fursad qof in lagala noqon karin baasboor iyadoona uu maxkamad marin tan shaqooyinka iyo caruurtana waddankaani turun ahaantii waxna laga aaminsan yahay miya mise waxa aan nahay mise waxa aan noqon doono dad soo galootiya ahaan waddankan waa imaanay dad dhibaatooyinkooda kaliya laga sheega ahaan hadda corona waxaan helnay fursad dad badan oo dhalinyaro ee dhakhaatiir ee caafimaad barteen oo noo soo kaceen waddankan ka soo kaceen oo dhaheen sheekada sida ahayd u sheegeen dadkoodiin isla markaas wax u qabteen oo ka hor istaageen maxaa la dhahaa sidii u faafiya maxaa la dhahaa jiradan ay u faafaysayna ka hor istaageen so waxa aan noqonayno mise waxa aan ahayn mise waxaynu lagu yaqaanay waxaan lagu yaqaanay dad loo hadlo oo iyaga weligood hadlin dad maalin kasta hal qof matalo oo iyagoo dhan dhinacyo kale laga aqoonin laakiin maxaa noqon doonaa iyo maxaan damacsannahay run ahaantii gabadha yar oo Soomaalida mise wiilka yar oo Soomaaliga maanta waddankan intuu kusoo koraayo markuu helo qof asaga u eg oo isku sinji ay yihiin oo isku maxal dhahay aniga flickninga waddankan ku imaaday laakiin maanta baarlamaankan la tartamaya dadkaanito waxay u tahay horta wax uu misaal uu ku dayan karo tan labaadna berita markii askariga uu istaajiyo cunugaanito maalin kasta caruurteena meel kasta lagu bahdilaa iskool ha ahaato mise saaxiibahood dhexdooda cunsurinimo ha ahaato cunugaas wuxuu helayaa fursad inuu dhaho dadkayga waxaasay qabsan karaan aniga beri ninka Pakistaaniga maalin kasta markuu soo istaago telefishinka uu dhaho dhakhaatiir anaha looyara anahay maxal dhahay injineera leenahay taas ma aha kaliya dadkaasayto dhan aniga i matalaan laakiin macnaheedu waxaa waaye dadkeena way أربعة إن فندري أهان جيرين حدا نواكب إحنا مرحلة داسيتو برلمان كمان تهدي على الصومالي التجارب معني هذا حواي سو قالوتي وأهان جيرين لكن مرحلة داسيتو نواكب إحنا لبعضهم كسر نصوص على يتمن كسر نصوص على وحياة بدن وكلام ولا أركضونا لكن ما أنت أنا ما فدينا يمكن وده هاي عرونا النسوء علينا يا مس إن حدها باسبورة الجوجينا لكن عدكي يعني حنكون استعمال دونا عدالة ضد كسر أنجورها إذنها يوم سنان وطن كان وطن كان هدين السنان كجيرين فرصة ما هيسن سو قالوتي هدانا هاي باكشتي كنا بلابنا هدين كوب بدنا هاي وطن كان وندور يعرفتن كم قاعدين إن دب صوص عرنا وحلي نجسوا بيو دتك كلنا رنتي وحنا دتك سوماليات ودد عاد سلوك حران ودد عذايا ودد أنا كنا كدير سنة وحنا صوص عرتين ودكم هم قينا وحسوا بعتنا مركان بيسك فدينه وحي كيسة سومالي خسايا وحي أجنبي خسايا وحي نوريجي خسايا أنت بقول دودنا مركز طلبات أديك سومالي هم محن كو قبنايا وحن كو قبنايا أنا جا إسكو أفكن كوارا الله
isku dhaqan bay leedahay isku diin bay leedahay waad iman kartaa markay dhibaato ku haysato marka haddaan ku idhaahdo waxba kulama qaban karo de marka waad caban kartaa laakiin adigoo waxba i weydiisan adigoo aan ii imanin adigoo aan dhibaataada ii sheegin inaad iska tidhaahdid markaan ku dooto maxaad ii qabanaysaa wax xisaab yara adag in laga jawaabo marka waxaan u malaynaya halkasan kusoo gabagabaynayaa laakiin had iyo jeer waa inaad noqotaan dad ku diirsada dadka Soomaaliyeed soo saartaan hamoodina inaa khasaaraysan codkiina qof Soomaaliyeed baa miiska talada fadhiisasay annaga marka waxa loo wixii Soomaalida khuseeya of course ka jawaabayna waayo annaga wakiilku waa ku fadhna miiska Da vil jeg spørre deg konkret, hva slags religionsfrihet skal jeg som muslim få hvis dere kommer til makten? Og hvorfor kunne ikke jeg ha fått denne religionfriheten i de 8 årene som dere har sittet ved makten? Det mitt første spørsmål. Jeg håper at du... Altså, jeg synes det kjempefint om det mer likestilling både innenfor kirka, i moskeen, i synagogen, i alle mulige religiøse aktører, men det noe med at det må de religiøse aktørene, enten du muslim eller kristen, det må de få lov til å styre selv. Og det det som jeg tenker litt religionsfrihet i praksis, at ikke staten skal si du som imam der, du må ha så og så mange kvinner i styret, eller du som prest der må ha så og så mange kvinner. Så det et forskjell som kan endre seg hvis det blir et annet type styre i Norge, som jeg synes veldig dumt. Og så det jo også, vi ser jo en utvikling for eksempel i NRK, så det nå ikke lov å vise kors eller hijab for vanlige journalister. Det også en utvikling fordi at NRK, altså TV-kanalen, ønsker at man ikke skal ha religiøse plagg synlig fremme, som om religion noe skummelt. Og jeg synes det blir helt meningsløst. Jeg synes det flott det, om folk enten går med en turban fordi de sikh, eller med hijab, eller med kors. Det ikke noe problem. Så det en utvikling i samfunnet hvor det mye, mye mer tanken om at det offentlige skal bli så religionsnøytralt som mulig. Vi ser en utvikling som ligner litt, som stadig mer ligner på det franske sekularismen, hvor det veldig sterkt skille, hvor det religion, det driver du med hjemme, mens offentlig du nøytral, som om du bare legger igjen religionen før du går ut av døra. Og det en utfordring som jeg synes kjempevanskelig. En annen ting som KrF ønsker for eksempel muligheten til å ha muslimske SFO-er eller muslimske friskoler. Jeg ser ikke noe problem i at de etableres, akkurat som vi har kristne friskoler i dag. Hvis muslimer eller hindu ønsker det, så skal de få lov til det. Og jeg sier ikke at det bedre enn noe annet, men det litt hvem som skal bestemme over hvordan man skal leve sitt religiøse liv. Og det der SV og Arbeiderpartiet har en utrolig ovenfra ned, sånn vi bestemmer over dere, mens vi tenker at det de religiøse aktørene selv som må få bestemme, så det en kjempestor forskjell. Du faktisk ikke svarte på spørsmålet som handlet om hvordan skal man få mer religionsfrihet, som man ikke har fått etter de 8 årene. Og så det veldig, veldig spesielt at du svarte ikke på spørsmålet deres. Du gikk til flere angrep på de rødgrønne og mistolkninger enn det du svarte. Så det hadde vært for demokratiets skyld da, så tenker jeg at vi skylder de folka som her, at vi faktisk svarer på deres spørsmål, i stedet for å på en måte legge ut mye om andre partiers politikk, i stedet for å svare på egen politikk. Jeg ble veldig, veldig, veldig overrasket over at KrF har laget en videosnutt som sier at man skal ha religionsfrihet i Norge. Det religionsfrihet i Norge. Det grunnleggende rettighet man har i Norge, at det skal være religionsfrihet. Det finnes muslimske skoler. Du skal kunne gå med hijab. Du skal kunne bygge moské. Du skal kunne bygge be når du vil. Det ingen som begrenser din religionsfrihet. Så jeg synes det veldig billig bånd da, å lage snutt på, altså videosnutt på at man skal ha religionsfrihet i Norge. Altså det grunnleggende rettigheter vi skal ha, og det skal vi kreve, og Arbeiderpartiet støtter selvfølgelig at alle skal leve her i Norge med sin religion, med sitt språk,
Du kan klä dig akkurat som du vill och du ska ha det. waxaan ku talagalnay inay noqoto dood furan xisbiyada la barto waxaan kaloo si gaar ah uga casunnay xubnaha ugu muhiimsan ee Soomaalida ah asalkoodu Soomaaliga yahay laakiin mataliya xisbiyada kala duwan ee baarlamaanka waddanka oo ay ugu horeyso Maryam Xuseen iyo Faadima Cali saan ugu barateenba waxaan u taaganahay mar walba danta ummadda Soomaaliyeed meel walba ay marayso maanta waxay maraysaa doorashada dalka Norway iyo baarlamaankeeda waxay